yaalkan waa tutorialkii 11aad oo ku soo qaadano mid kamida weerarada computerkaaga ama shabakada aad ka shaqeysay haleeli karaya adigoo waxa su'aalaha inaad soo diisid iyadoo practical ah meel heli karaya iyadoo practical insha Allah waxaan ku makaan insha Allah gaadno CCMB da ama makaan gaadno Cisco Certified Security Professional ka ama Cisco Certified Security Associate oo CCSA ah ayaan insha Allah ku eegi doona laakiin imaka waxaan maka bixinadu maan maka si barana iyo sida ugu hortagi lahayd iyo dad artist aan u garan waay lahayn intaas ma insha Allah tutorialkan ama chat course-kan insha Allah ku arki doona haddaan gudaha u galno maanta waxaan dhiganaa waxa la yiraahdo cross-site scripting waa tutorialkii 11aad waxa yaaliyay su'aalahan ama sifsarada bahantay commentiga noogu reebin waxa yaala ka fiirsan weydina somnat@gmail.com aad noogu soo diri waxa la naga gaarsiin insha Allah kaaga soo jawaabin haddaan imano cross-site scripting maxaa tahay cross-site scripting horta cross-site scripting si loo soo gaabiyo horta iga qabo cross-site scripting waxa loo soo gaabiyaa cross oo egas ah iyo labada s egas ss hadii waxa loo soo gaabiyay cross-site scripting oo waxa maxaa ka si loogu soo gaabiyay maadaama isa looga dhigo css cross maadaama ay tahay laba calaamad sidaarsan saasa laga dhigo cross-site scripting intaas loo soo gaabiyay hadii lagu dhaho hadda aragtimka lagu dhaho egas hanjida egas oo cross s attack waynaad garan waynaad tirada oo cross-site scripting ayaa loo soo gaabiyay qodob ku xiga waxa si la isku yeelay hadaan akhrin waa weerarada kamida oo internetka ka dhaxdhaca oo cyber attack wuxuu xambaarsan bil fikradiisa xambaarsan ilaa fikradu xambaarsan waxa weeye attackerka ama hackerka kulba ka taqaanid ayaa website buu tagaya uu cid kala leedahay ama mid uu leeyahay iskiiba ayuu tagaya marka uu tago ayuu wuxuu dhigayaa cookies iyo alamsad iyo xaysiisiyo ayuu dhigaya ama iyo file uu ku jiro malicious scripts malicious script waxa weeyaan koodad xun ayuu dhigaya oo virus oo kala hadii fahmisa dadana markuu dhigo ayaa wuxuu sameeynaya computerkii qofka isagoo noogsaneyn oo unknown isagoo noogsaneyn ayaa qof markuu website-ki soo booqdo ayuu markuu website soo booqdo ayuu si download oo aanu soo damcinba oo aanu doonin ayuu degaya inta misal fahnay marka computerka qofkii ay kiisa u degto ayaa wuxuu sameeynaa cross-site scripting in waxaba ku jira cross-site scripting kan file kan uu la soo dego kale waxa ku jira waxyaalo uu ugu tala galay qofkan attacker tusaalahaan kale wuxuu rabaa marka ay qofka victim ka dhibanay computerkiisa file kan uu tago inuu soo duubo dhammaan waxyaalaha uu qofkan computerkiisa ka dhaxwado tusaale kale keyloggerka kale waxyaalaha uu keyboardka ka qorqorayo inuu soo duubo ama meelaha website-dada booqanayo ama passwordkiisa ama inta account ee computerka ku leeyahay ama haday noqoto inuu soo duubo marka uu transaction ama internetka gudihiisa wax ka dhax iibsanayo haduu Alibaba ay kale ka iibsanayo waxyaalaha uu aad ku jecel yahay waxyaalahaas oo kale ayuu soo duubaya marka cross-site scripting bale fikradaha soo kale markuu kan yahay attacker ama waxa la perimeter baa loo yaqaan ama attacker ayaa website-ki ayaa file bu diyaarinaya file-kaas oo scripting oo malicious script ku jiro code xun ku jiraan wuxuu geenayaa website-ka uu geenayaa laba midkood ama website uu leeyahay ama website cid kale leedahay intuu jarsado ayuu gelinaya deetana waxa soo booqanaya qofkii visitor-ka aad iska caadiga aniga iyo adigo deetana markaad soo booqatid aad qabatid aad website-ki istiraag wax ka dadaawo website-ki waxa ka dadaawo ama istiraadi wax kala soo deg ayaa adiga ku sooneyn file-ki kugu soo degaya marka uu kugu soo dego waxyaalo walba aad sameeysid website-ki si toos ah intuu soo dhaafo ay receiver-ki ama hackerki ugu tagaya waxyaalihi aad sameeysay bal meesha wax ku yaalan akhrin cross-site scripting loo soo gaabay xss waa table of injection waa nooc kamid mudnin oo file ayuu wax ku mudaya attackerku ama file meesha yaalay isagoo file meesha yaalay oo failasha website-ka laga soo degaa ayuu mid kamid ah malicious scripts ku mudaya dhanka kale website-ka saas waxa weeyaan waa trusted website-dada ku kalsoon yihiin oo kale oo dadku badanaa booqdaan ay ku sameeyaan
cross script فكرته حنبرسين اللي فهمتها فيليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.